Magacaygu waa Almaas Cabdiqaadir Maxamed. Waxaan rabaa inaan halkan kaga gudbiyo fariin gabdhaha Soomaaliyeed aan ku dhiirigeliyo waxbarashada. Dumarku waa laf-dhabarka bulshada, waana bar ka mid ah bulshada, kuwaas oo barbaariya, tarbiyeeya barka kale ee bulshada. Sidaa daraaddeed, in loo istaago daryeelkooda, waxbarashadooda iyo dhismaha mustaqbalkooda waa mid waajib ah. Islaamku waxa uu waajib ka dhigay barashada cilmiga qof walba oo Muslim ah, si gaar ah dumarka, maadaama ay aqoontaas u gudbinayaan carruurtooda. Aan idinla wadaago qaar ka mid ah muhiimadda ay u leedahay gabdhaha waxbarashada. Waxbarashada waxa ay qofka ka dhigtaa qof garaad iyo garasho leh. Ma jirto hab kale oo qofku ku noqon karo qof garaad leh aan ka ahayn waxbarashada. Waxbarashadu waxa ay kaalin ka qaadatay barbaarinta ubadka. Waxa ay gabdhuhu siisaa dareen waaqic ku hareeraysan yahay. Gabadha caqligeeda dhisan yahay oo cilmiga baratay ma sahlano in si fudud lagu duufsado, waayo saameynta ay ku leedahay waxbarashada maskaxdeeda ayaa mar walba ku hagta halka toosan. Gabadha wax baratay way ka duwan tahay midda aan helin fursad waxbarasho. Waxbarashadu waxa ay gabdhuhu siisaa fursad shaqo. Gabdhaha qaar oo waxbarashadooda sii wata ilaa heerka jaamacadeed waxa ay bulshada ku soo kordhiyeen horumar aad u ballaaran. Waxay dabcigooda, naxariis iyo daryeelkooda ugu faa'iideeyeen bulshada. Sidaa daraaddeed, ku dhiirigeli gabdhaha inta ay yar yihiin inay waxbarashadu horumar ka gaaraan. Aan soo gunaanaday, gabar yahay, inta aad yar tahay ku dadaal waxbarashada si aad u noqoto qof bulshada ku soo kordhiya horumar qaabkee doontaba ha ahaatee waxbarashada.